deegaankii Soomaalida ayaa iyaguna haatan ligliganaya oo kacdoon xooggan oo isa soo taraya ayaa bilaabay olole xooggan oo lagaga soo horjeedo madaxweynaha dowladda deegaanka Mustafa Cagjar ayaa haatan isa soo tarayay labadii bilood ee ugu dambeeyay waxaana hadda ay laabantay ololahaasi badi naaninta iyo abwaanada oo gabayo iyo heeso markaasi mucaaridad ku ah Mustafa Cagjar ay hadda ay bilaabeen waxaana hadda la sheegayaa ilaa iyo moogtay dhowr heesood iyo gabayo in ay iska soo daba dhaceen kaasi oo lagu cambaareynayo ama lagu caayo wax laga sheegayo maamulka madaxweyne Mustafa Cagjar hadii aynu ku horeyno waxa gabay soo tiriyay markaasi qoraal ah oo dheer hadda aan ku hayaa qoraalkiisa halkan horta Axmed Budul aan ku horeeyay abwaankaasi ayaa isagu gabay soo tiriyay muuqaal ah oo markaasi ilaa daraad ilaa shalay markaasi baraha bulshada lagu faafinayay waxaanu Axmed Budul kamid ah daba erayadiisa uu leeyahay qarandoon qaraabi iyo jifi iyo raas ma qayrsade oo qondo hoose iyo ka weyn jees qawaraha marka waxa uu leeyahay xagga qabyaaladu gabayga aad uga hadlaya Axmed Budul waxaanu ku dhaliilayaa markaasi dhinaca madaxweyne Mustafa Cagjar xukunka maamulkiisa in qabyaalad iyo kala qaybin iyo moogtahay ay waxaasi wadaba la leeyahay gabaygana waa anti ba leeyri oo dhinaca iyo madaxweyne Mustafa Cagjar ayaa lagu dhaleecaynaya oo la leeyahay qabyaalada iyo moogtahay kala qaybin dadka ay ku dheereynayso reeskiisa ama reerkiisa ayuunbu moogtahay soo dhaweysanaya buu leeyahay fanaan Bashiir Jaawo ayaa isaguna gabay soo sameeyay kaasoo markaasi qoraalkiisa ka mid tahay dawlad ma aha maxay nala dul joogtaa buu yiri daacuun halaaye maxay nala dul joogtaa shacab diiratadu maxay nala dul joogtaa wadirkii fircoona maxay nala dul joogtaa dacar iyo sun weeye maxay nala dul joogtaa yacni hadda waa bareerba yacni dawladdu toos u abaarayba ninkaasi isagu fanaan Bashiir Jaawo la leeyahay waxaana hadaba ay kamid yihiin fanaaniin iyo abwaano dhowr ah oo hadda markaasi gabayadan antiga ah ee ka soo jeeda maamulka Cagjar oo isa soo taraya waxaana badi lagu dhaliilayaa markaasi bal leeyahay xagga reeraha oo moogtay soo kala dhaweysanayay qabyaalad bay qaar ku dhaliilayaan qaarna waxay ku dhaliilayaan maamul xumo weyn wax istawamarin haddaba dhinaca madaxweyne Mustafa Cagjar xukuumaddiisu 4 sano iyo 4 bilood ba hadda u dhamaaday waa markii ugu horeysay baan oran karnaa ay bilaabaan olole noocan bilaabmo oo xukuumadda markaasi mucaarid yeelato intii hore oo dhan Cagjar maamulkiisu yacni way yaraan cid ka hor imanaysay aad baa loola qiiraysnaa moogtahay maadaama xukuumaddii hore Cabdi Ilay ay dad badan moogtay waxyeelo u geysatay jeelashada ku cadaabi jirtay yacni dadku dhibaato ay soo mareen badi inkastoo qaar ku nimcaysnaana ay jiraan kulley laakiin si haddana dadka badi waxay u sheeganayaan dhibaato badan ay ka soo gaadheen marka jilowda ogaadeen iyo kale la eego dhibkii ka dhacay haddaba Cagjar maamulkiisa aad badan kugu riyaaqeen yacni waa markii koobaad ee gabayo iyo moogtay olole xooggan lagaga soo jeesto Mustafa Cagjar kama jawaabuu leh xukuumaddu howlahan hadda ay wadaan ololahan xagga gabayada iyo suugaanta ee bilaabmay inkastoo la lahaa fanaan hore ayaa la xirayo isaguna hees mucaaridada qaaday laakiin se labadan kale wali hadda xukuumadda talaabo kamay qaadin baa la leeyahay ilaa ay hadda intaan qoshata bistixkaarana iyo midha qaramada iyo qowldalan waa waxaan qaadashow garine waxaa jira katane naxwa qaata loo darine kama murtukani bay ku tahay weedha karaweyne qalin jabisna wow kordaya mansa qaaliyahe qalin jabisna wow kordaya mansa qaaliyahe qarda jabis ma fi wakaciidadaas iyo anoo maraya qaynuunka ayaanka bilsiya murtida meelu qaalantaye qawaaniinti xeediyo anoon xeerka qaalin daarin ankumaati yoolkan kastay heshiishu qabadsiiyo qarantoon karaamiyo jifiyo rasma qayrsadoe
koonta hoosiyo ka wenjeska waawiraahe isagoon kurun wada jirtiyo qaarad idil waayin qurus liita iyo qudma bido qobad edeg lege mana qaada bulkolle iyo awrqab waa xaroode kumanow abwaanti macadiyo qamarkii sugantu qabyaalada in badan waysagii ka dhacayidhiye oo kowlkiisi laakiin dadkani qaadan garan waaye qudhayduna sidiisi haddaan qayla dhaandiriye qabiil waa kalqala iblis qonku duufsadoe qolmadowna waanugu jira oo qaniin badane qolmadowna waanugu jira oo qaniin badane qadiga sharciga qeexa iyo weli quran ruga iyo qalin aqoon-yahan hayoy qorayso taariikhdu China ayaa ku dhawaaqay inay taageero buuxda siinayaan Ruushka waxaana uu China sheegay in uu Ruushka iyo Chinesku ay markaa xiriirkooda sii bilaabayaan sanadkan hadda bilaabmaya 2023 wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi China Wang Yi oo markaasi live lagu wareysanayay moogtay TV shir markaasi live ahaa oo xagga moogtay TV la isku wadaarsanayay ayuu ka dhex sheegay oo yiri Ruushka iyo China xiriirkoodu wuu sii laba jibaarmi doonaa waxaana mar walba garab taaganahay buu yiri oo taageero siinayna xukuumadda Ruushka waxaanu sheegay dagaalka Ukraine buu yiri anagu ka cidna taageerino laakiin siyaasadda kale ee Ruushka iyo moogtay caalamku wajan waan garab taagnaana dhaqaalahan waan ka wada shaqeynaa kobcis dhaqaale oo wada jir ah ayaanu sameynaa buu yiri Wang Yi waxaana uu sheegay markaasi oo ku qaaday weerar Mareykanka oo ku sheegay inuu yahay mid doonaya in isaga loo hoggaansamo oo caalamkii markaasi ka wada xoog iyo markaasi inuu caga jugleeyo xitaa Chinese-ka oo dhibaatooyin badan u geysto doonayo laakiin se China taasi u badabcaysa buu yiri dhinaca kale Wang Yi wuxuu hoosta ka xariiqay oo sheegay in uu xiriirka oo la yeeshay Chinese-ku wadamada Carabtu yahay bilow shirki uu markaasi koobaad ee uu la yeeshay madaxweynaha Chinese-ku Xi Jinping wadamada Carabta ee ka dhacay Sacuudiga ayuu aad u soo dhaweeyay waxaanu sheegay waa cusub uu bariyay wadamada Carabta iyo markaasi China ay noqon doonto wadan aan markaasi cidnaba dhibaato u geysanin caalamka oo moogtay dhaqaale korinta ka shaqeeya sida Mareykanka dadka doonayeen inuu adoonsado ama u taliyo buu yiri anagu sameyn mayno waxaana hadaba arintan ay ka dambeysay sida oo kale taageeradan Ruushka uu sheegayo markaasi Wang Yi in ay wada yeelanayaan kadib markii wiigii hore ay maraakiibta dagaalka ee China iyo Ruushka waa kii sameeyay markaasi bandhig weyn iyo dowlatus military waxaana hadda u muuqataa marka in Chinese-ku awoodiisa doonayay inuu sii laba jibaarmo iyo saameynta caalamka ku leeyahay waliba gacmaha inay isqabsadaan buu doonayaa dalkaasi Ruushka oo uu Mareykanka ay iska celiyaan iska difaacaan iyo wadamada reer galbeedka loolan xoogan ayaa hadda caalamka dhaxeeya labada quwadood ee adduunka ugu waaweyn ee China iyo Mareykanka way is'eryanayaan qolo waliba qolo ay eedaynaysaa waxaana hadda ay u muuqataa markaasi in dagaalkooda iyo hirdankoodu ay saameyn ku yeelanayso wadamadii caalamka badi meel kasta oo ay wadamadaasi ay ku yaalaan Mareykanka ayaana hadda doonaya inuu saameyntii ku lahaa adduunka gebiyaanba isaguna soo ceshado